السلام عليكم صاحب يال سو dhawaada meel walba caalamka joogtaan waa another video cusub videogan saaxib yaal waxaan uga hadli doonaa hadii Ilaahay idmo sideen u sameeyaa falanqaynta sideen yacni u falanqeeyaa lacagaha sideen u sameeyaa forecasting iyo wixii la mid ah sida u jeedaan halkan waxa mar walba waxa xoog saaraa ama isku diyaa saaxib yaal si maaragtay aan anaga dhan uga faa'iideysano videoga badankeena oo u fahmo in aan qodobo u yeelo ama si maaragtay aan shuruuc u dejiyo qaabka markaas waxa uu markaas video ku saabsan yahay sida halkan uga jeedaan ciwaanku wuxuu noqon doonaa hadii Ilaahay idmo sideen u sameeyaa falanqayn number 1 markaan rabnaa lacag falanqeyno oo aan jiho u dirno waa maxay steebyada aan marayno sida halkan uga jeedaan halkan waxa noo taalo 4 step afartan step waa 4 step oo aniga aan isticmaalo waxa laga yaabaa in badankiina ay duwan tihiin waxa laga yaabaa waxyaabo maaragtay helpful oo kale isticmaashin laakiin this is my technical kan laakiin waa mid ka anigu sameeyo marka aan rabo inaan lacag falanqeeyo run ahaantii videogan waxa ay u qasbay inaan duubo idin soo geliyo bartaan ku leenahay YouTube-ka waxaan anigu isticmaalo suuqan waa ku wada jirnaa cilmigaana waa wada baranaa anigu marka waxa aan anigu aqaano waxaan jeclahay oo aan waxa aan anigu isticmaalo oo aniga aqoonteeda oo anigu aqaano inaan cidna ka hakran qofkii safarkan ku jirana ay ugu noqoto maaragtay wax ka faa'iido ninkii asoo markaas yaqaano qaabku wax u falanqeysto oo wax shaqeynaya heesto waa maaragtay waxaan kula talin lahaa inuu maaragtay u gudbiyo walaalaha kale laakiin tani waa waxaan anigu sameeyo waa qaabka aniga aan maaragtay suuqa u falanqeeyo suuqa aan la falgalo marraba video inuu naga dheeraado ku soo dhawaada saaxiibayaal mar kale sida halka u jeedaan ciwaankeenu waxa uu noqon doonaa hadii Ilaahay idmo sideen u sameeyaa falanqaynta halkan waxa noo taalo number 1 oo ah marka aad rabto inaad lacag falanqeyso number 1 marka ugu horeyso waxaad falanqayntaada ka soo bilowdaa number 1 ka soo bilow falanqayntaada high time frame sida 1 week 1 day iyo maaragtay halkaas oo kale falanqayntaada 1 week ama 1 day ha ku saleysnaato si jihada saxda ah ee suuqaas oo u dhaqaaqi karo at least aad ogaato step ka labaad ee ay tahay in aad maaragtay marto oo anigu badana aan isticmaalno waxa ay tahay waxaad fiirisaa suuqu mar reversal ku jira markan mase continuation yani waxa ula jeedaa suuqu wuxuu kala wareeg ah ayuu high time frame ka tusaa mase wuxuu ka tusaa si socosho waa number 1 step ka saddexaad ee aan u adeegsado marka lacag rabo inaan falanqeeyo waxa ay tahay waxaad iska fiirisaa waxa ka dhacayo bidixdaada waa muhiim pointigan waana pointiga ugu kaleefo inaan videogan duubo sababtoo oo ah waxaan idin tusi doonaa cadeymo haba u badnaata 2020 sanadka hadda aan soo dhaafnay lacago xilliye kala duwan aan jiha u diray jihadii aan u dirana si toos u tagay maalintaas waxaan ku fikirayay iyo qaababka u falanqeeyay aan rabaa in caaw kula wadaago waana sababta aan video u soo duubay okay waxaad iska fiirisaa waxa ka dhacaya bidixdaada number 4 wuxuu noqon doonaa qodobka ugu dambeeyana waxaad ku go'aamisaa waxa dhici doono markaad intan soo ogaato ayaad step 4 ayaad waxa ku go'aami doontaa inta saddexdaas wax ay aad gadaashaada ka soo aragtay ayaad waxaan dhici doono maaragtay aad ku dirsi doontaa hadii Ilaahay idmo let me see you there okay lacagtan waxa weey euro iyo GBY waxaan joogaa 1 day time frame sida u jeedaan saaxiib ya lacagtan halkan waxa ay iga siisa markaas waxa la yiraahdaa laba taabasho ama double bottom hadba kii markaas aad tiraahdo ka bacdi soonkeygan waxa lagu yimid qaab correction ah intaasba jiha guud oo waxaan ka helay ah lacagtan inay tahay lacag buy ah okay waxa xiga
lacagta aan markaas rabo inaan high timeframe ka fiirno waxa ay tahay uguna muhiimsan lacagtu waxa u jeednaa in maaragtay ay halkaan naga siinayso more confirmation in naga siinayso xaqiiqooyin badan in halkaan naga siinayso marka intaas high time frame ka soo helno oo falanqeynteeni qodobadan hadda la socotaan waxa wuxuu ahay inaan high time frame kuuba talaabta koowaad ay noqoto aan ka soo bilowno inaan asaga ka soo xaqiijino wax reversal ah ama se maxay ahayd soo ah continuation haddana waxaan helnay calaamad noo muujinaysa suuqa inuu kala wareegi doono oo reversal u geli doono okay intaas markaas la garano waxaan u dhaadhacaynaa low time frame ka waxaan tegaynaa ilaa 1 hour ka marka 4 hour ka iman lacagta maxay 4 hour ka maaragtay confirmation oo kaysana waxaan kaysanaa in 1 iyo 2 iyo 3 saddex taabasho ay sameysay ka bacdina lacagtan ay sameysay imbalance nasasho gashay another imbalance move kale oo dhaqaaq intaas lacagta marka halkaas markii lacagta mareysay ayaan falanqeeyay marka talaabooyinkii markaas aan qaado waxa ay ahayd inaan maaragtay soo jaray waxa halkan ka dhacay dan aan halkan u geeyay wax isku mid ah inuu suuqi halkan iga tusay Soma lacagtan marka halkan waa bidixdeeda halkaana waxa ka dhacay waxa ay tahay in aan u jeedo descending channel suuquna uu reversal yahay waxa soo dhan marka iska xaqiijiyay confirmationadan aan ku dabaqay lacagtan waxa ay soo baxday inay intaas oo kale lacagtan dhaqaaqi doonto intaas oo kale lacagtan inay dhaqaaqi doonto ay soo baxday oo lacagtan ilaa iyo halkaas double topkaas tagi doonto aan marka fiirino lacagtaas aan fiirino waatan lacagtaas soo jeedaan lacagtan waxay halkan ka sameynayso iyo waxay halkan ka sameynaysaa saaxiibya waxa u jeed oo isku mid ah waa imbalance waa nasasho waa another imbalance saas darteed marka anu waxaan halkan waxa ka dhac bidixdeeda ayaan waxaan u geeyay waxa dhici doono aan ku dabaqay bidixdeedana iska fiirshay imbalance correction kan uu yahay intaan marka hel lacagtan waxa aan go'aansaday inay lacagtani buy tahay saasna ay maaragtay buy ku aadayso bacdina waxa dhacay saaxiibayaal dad fiirsan oo u jeedaan halkii aan u dirnay ay waxay u aadasay direct ah oo u jeedaan Soma taariikhda hadda si fiican u fiirso waxa ahayd June 2020 taas fiirso June 2020 lacagta xigta ama bal tusaalaha xiga saaxiibayaal waxa uu noqon doonaa hadii Ilaahay idmo USD iyo CAD saaxiibayaal lacagtan saaxiibayaal waxa weey tusaalihii labaad waa saaxiibayaal waa tusaalaheeni labaad lacagtan waa USD iyo CAD waxaan joogaa high time frame waxaan joogaa 1 day sida u jeedaan lacagtan halkan waxay ayadana iga siisay waxa la yiraahdo laba taabasho labadii taabasho halkan waxa lagu yimid waxa ay tahay ascending channel intaasba waxaan ka soo ogaaday high time frame ka saaxiibayaal okay hoos aan u dhaadhacno aan aragno waxyaabaha bidixdeena ka dhacay soo jeedan saaxiibayaal lacagtan halkan waxay iga siisay trailinkan hadda u jeedan waxa la taabtay markii saddexaad waa 1 iyo 2 iyo 3 saddexdaas taabasho oo ii muujinaya inuu yahay descending channel laba taabasho oo maaragtay siman oo double bottom ee lacagtan ii sameysay haddana bidixdeeda markaan fiiriyay taariikhdu xilligaas oo u jeedin 6 July 2020 ee Soma lacagtan halkan waxa amazing ah lacagtu markii ay dhaqaaqaysay oo impulse dhaqaaqaysay halkan lacagtan waxa iga siisay saaxiibayaal laba taabasho siman haddaan hadda soo qaadano reelinkeena oo aan saarano fiiri saaxiibayaal waxa ay halkan ka sameysay laba taabasho siman taasana ii suurto gelisay lacagtan in ay buy aan u falanqeeyo okay halkan fiiri saaxiibayaal waxa ka dhacay kan aan ka tiro si aad maaragtay ka soo gudubnay si aad ugu mashquul waxaan rabaa inaad focus halkan saarto fiiri saaxiibayaal meeshan halkan waxa ka dhacay si fiican igu fiiri lacagtu markii halkan ka dhaqaaqaysay mini double bottom ay sameysay
train lane kaanayna ku timi saasayna ku dhaqaaqday okay oo hadda maxay sameysay train lane-kii haddana lagu soo laabtay mini double bottom la sameeyay dhisan yara ku sii dhex jirtana dhisan yara ku dhex jiro lacagtan markaan intaas arkay saaxiibayaal tabaka allahan dhahay waxaan u falanqeeyay lacagtan buy ilaa iyo inay train lane-ka soo xaqiijin doonto bal maxaa ka dhacay marka saaxiibayaal ma isla aragno oo jeedan Soomaa saaxiibayaal waxa ka dhacay exactly waxa ay tagtay halkii aan u falanqeynay bal aan kula wadaago marka xilligaas screenshot-kii aan ka qaaday waa kana saaxiibayaal oo jeedan Soomaa waxaan maalintaas soo jartay waxa bidixdeeda ka dhacay ujeedin waa wax isku mid ah حتى لعقتها marka aad falanqeynayso waxa loo falanqeeyaa option 1 iyo option 2 aniga lacagtan waxaan u falanqeeyay aan xooga saaray oo aan ku kala soonaaday xilligaas in ay lacagtan option 1 aadi doonto oo asagan doortay sa u jeedaan halkan ka bacdina wixii dhacay iyo maaragtay screenshot-kii maaragtay afterta ahayna wuxuu noqday qaab noocan ah waxay tusaa haddii aan isla tagno saaxiibayaal tusaalaha saddexaad tusaalaheena saddexaad waxa uu noqon doonaa euro iyo cad halkan waxa ay naga siisaa train lane-kan sida u jeedaan 1 iyo 2 iyo 3 1 iyo 2 iyo 3 suuqu waxa uu soo sameeyay dhaqaaq xilligaas dhaqaaq marka uu lacagta soo sameysay halkan waxa ay ka gashay correction intaas marka aan helna marka dhaqaaq dhaco oo correction kan dhaco maxaa filanaysaa nasashadan maxaa filanaysaa in suuqu si dhaqaaqo oo train lane-ka lagu soo buuxsho intaas marka aan ka soo ogaaday high time frame-ka waxaan gudaha u soo galay structure-rada ay ka sameynayso in aan ka helo wax qanciyo oo maaragtay aan ku kala soonaa karo sida u jeedaan saaxiibayaal halkan lacagtan waxa ay naga siisay dhaqaaq waxaan waxay yihiin nasasho ka bacdi maxaan filaynaa dhaqaaq kale exactly aniga markaas xilligaas waxaan u fakiray waxa aan fiiriyay waxa ka dhacay bidixdeeda sababtoo waxaan video duuba waxa ay tahay inaan kula wadaago qaababkan xilligaas u fakiray qaababkan lacagta maaragtay aan u falanqeynay okay marka lacagtan dhaqaaq nasasho dhaqaaq nasasho dhaqaaq kaliya waxa aan soo qaatay intaasaan soo qaatay saaxiibayaal taasaan soo qaatay waxaan iri lacagta waxay soo dhaqaaqi doontaa ilaa iyo halkaas ama train lane-kaas ay taaban doontaa ama maaragtay waxay imaan doontaa ilaa iyo rail lane-kaas okay sidaas qaabkaasaan lacagtaas u falanqeeyay habeenkaas waxa xilligaas waa 11 May meelahaas 2020 ahayd sanadkan soo dhaafnay okay marka ka bacdi maxaa dhacay marka lacagtan waa tusaaleyn saddexaad lacagta maxaa dhacay soo jeeda lacagtan waxay u soo dhaqaaqday straight aan kula wadaaga marka screenshot-kii before iyo after-kii xilligii hore waxay ahayd May 6 May 2020 soo jeedaan lacagta marka oo jeedaan qaabkii aan u falanqeeyay oo jeedaan saaxiibayaal qaabkii waxay ahayd qaabkii aan u fakiray okay maxaa dhaca marka saaxiibayaal oo jeedaan May ilaa May 9 3 bir gudood waxa ku dhaca saaxiibayaal sidii aan filayna ku dhacda saaxiibayaal sida u jeedaan oo ka aragtaan sidii aan filayn ka bacdina lacagtan waa markii kale aan u falanqeynay buy وقاوبك لقو يمد iyo maaragtay aan hadana maaragtay si falanqay laakiin sida u jeedaan exactly waa sidii aan u falanqeyn marka saaxiibayaal mar walba oo saaxiibayaal aad lacag falanqeynayso waxa muhiim ah falanqeyntaada inaad ka soo bilowdo one day inaad ka soo bilowdo yani high time frame inaad gudaha u soo gasho structure ku qanciyo oo jihadii aad u falanqeysay waafaqayo inaad hesho waxyaabaha intriga noqdo meelaha maaragtay ugu habboon intriga ka qaadanayso waxaan ka dhiga doonaa maaragtay casharo dambe iyo fiidiyoyaal dambe haddii ilaahay idmo laakiin tan waxa ay ahayd muuqaalkan wuxuu ku saabsanahay steebyada aad markaad lacag falanqeynayso wadooyinka aad mari karto waana wadada aan anigu maro laga yaabay wadooyin kale oo adiga aad marto
inay iga wanaagsan yihiin iga powerful yihiin laakiin tan waa this is my technical inta ku kulmayno video wixii saaxiibay waxaan idinkaga tagayaa cimri dheer cibaado suuban iyo caafimaad taam